in gacanta lagu soo dhigay waa arrin aad u farxad weyn oo wax weyn taraysa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Galmudugba raggaas oo tira ahaan dhammaa 3 nin howlgalkan isaga oo ahaa howlgal qorshaysan si fiican looga baaraan degay waxa hogaaminayay taliyaha qaybta booliiska Galmudug oo gacan ka helayay ciidanka madaxtooyada ee daraawiishta Galmudug waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed ciidanka daraawiishta Galmudug iyo ciidanka xoogga dalka iyo cid allaaliya cidii gacan ka geysatay qabashada raggaas ficilka fooshaxun ku eedeysnaa waxaan rabaa si gaar ah oo aad iyo aad u sareysa inaan ugu mahad celiyo dhaqanka culimada waxgaradka reer Xaaji Saleymaan oo gacan buuxda ka geystay qabashada raggaas muujiyana siday ugu xun yihiin ficilkaas argagaxa leh ee loo geystay dadka masaakiinta aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana arrin u baahan ku dayasho laga dhaxelo reer Galmudug oo dhan ficilada caynkaas oo kale markay dhacaan in ciidanka gacan lagu siiyo haddaan gacan lagu siin ciidanku guusha la rabo lagama gaari karo ficilada caynkaas dhammaan reer Galmudug waxaan leeyahay ku dayasho ayay leeyihiin reer Xaaji Saleymaan ha lagu daydo ficiladaas si looga fogaado inta qorsheynaysa ama aqligooda ay ku jirto ficil caynkaas oo kale inay ka dhac sameeyaan Galmudug waxaan leenahay waa inii jeednaa waxaan mari doonaa wadadaas ay jeexeen reer Xaaji Saleymaan waana mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha Axmed Kaariye Qorqor oo runtii dhacdaan markay dhacday aad uga xumaaday ka gubtay amrayna wasaaradda iyo ciidanka iyo cid walba ay qusayso in tallaabo degdeg ah oo muuqata laga qaado mudane madaxweyne ama wiirtaas aadna siisay waa fulinay waana lagu guuleystay ciidankii gaarka madaxtooyada oo aad noo amartana gacan fiican bayna siiyeen runtii yacni Galmudug dhacdooyin badan oo ka dhacay qaar horena waa lagu guuleystay qaarna sidii ahayd umay dhicin laakiin dhacdadan way ka duwaneyd waxayna taabatay qof kasta oo bini'aadamnimadu meel kaga dambayso ama Galmudug ha joogo ama meel kale dalka Soomaaliya ha ka joogo ama islaamnimo wasalka ku hayee in caa'ilo dhan la xasuuqo gacanta la mariyo waxay ahayd wax aad noo taaftay qof walba oo reer Galmudugna meeshii uu joogay ayuu xil iskaga saaray in arrintaas laga jawaabo dawladdu waxay iska saartay si gaar ah ayay iskaga xil saartay dhammaan golaha wasiirada cid walba waa laga wada hadlay in arrintaas aan laga fariisan oo meel fiican laga gaaro alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay subxaana qaadirkaana abuurtay ayaan uga mahad celinaynaa inuu gacan naga siiyey oo noo fududeeyay inaan ku guuleysano dadka ficilkaas ku eedeysnaa inay gacanteeda soo galaan mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan reer Galmudug oo isku duuban waxaan idin leeyahay hambalyo kuwan iyo kuwa kale ilaahay naguma keene anu wada istaagna garabna aan qabsano dhulkayagu ha ku caan ahaado mid nabadda u dhaqaaqa ficilada xunna ka gubta kana dhaqaaqa kana jawaaba wixii dambe oo ka soo kordha keeskan isaga oo u gudbi doono maxkamad iyo lamaha amniga leh waa in la socodsiin doonaa insha Allah shacabka Soomaaliyeed meel bay joogaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan ugu yimid sidoo kale waxaan rabnaa inaan la wadaagno shacbiga Galmudug iyo shacbiga degmooyinka Cadaado Baxdo iyo Godin Labe oo runtii ay si qalbiyadooda taabatay arintii ka dhacday dadkii lagu laayay miyiga Qaayib oo halkaas birmageedada abriyada ahaa oo runtii dadkaasi aad qalbiyooda u xanuujisay waxaan la wadaagaynaa in lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo ragii ku eedeysnaa dhacdadaas foosha xun oo ka dhacday miyiga Qaayib dhammaantood in gacanta lagu hayo ayaan rabnaa inaan la wadaagno dhammaan shacbiga reer Galmudug iyo si qaasa degmooyinkaas shacbigooda oo xanuun adag runtii ay ku qabatay dhacdadaasi waxaan rabnaa inaan uga mahad celino arrintaas taliyaha booliska Galmudug oo hogaaminayay howlgalka iyo ciidamada booliska dhammaan degmooyinka Galmudug oo qayb ka qaadanayay iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta Galmudug iyo ciidanka madaxtooyada ee qaaska ah runtii ayaguna xoojinayay ayaan rabnaa inaan uga mahad celino si qaas oo kale waxaan rabnaa inaan uga mahad celino madaxweynaha Galmudug iyo wasaaraddiisa amniga oo bixiyay runtii amar adag oo ka culus amaradii kale si gacanta loogu soo dhigo dadka dhibaatooyinka noocaas geystay ayaan runtii rabnaa inaan uga mahad celino
runtii galmudug madaxweyne qorqor wuxuu iska saaray xil gaara amniga waxyaalo kale oo hore u dhacayna waa lagu soo guuleystay qabashadoodii haddana dhacdadan waa lagu guuleystay waxaa la amray dadkaas hay-adaha ku shaqada leh runtii in cadaaladda la horgeyn doono waanan rajaynaynaa in runtii ay xaqii dadka laga gudi doono cadaaladda la horgeeyo sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka deegaanka miyiga ku nool dhulkaas oo ka qayb qaadanaya soo qabashada nimankaa la soo qabanaya